Praise be to Allah. To Union Office of CBJ from a journalist, Shasha. Firstly, I thank you for your role in advocating for my freedom, and then I wanted to share with you that I am missing my freedom. It reached 51 days, and still have no change or improvement. There is no legal right to be held by me. Except that I am journalist, I publish information on our abuses they commit to innocent. The main crime I committed under their judgment is that when I interviewed local marginalized community, those called Jarer, belonging private farm that the president took over by force. And he replied to take over my radio and a camera in response to that retaliation. As they threatened me, what can you do with your radio? That is the only power you have, and you can do nothing to us, even if you complain to on sky. I would like to make it clear that all Somali media organizations have been silent on my issue except SJS, because it is only due to tribal affiliation, marginalized member facet program. I believe if I would become the royal clans in Somalia, even media team should have made reaction, but just no. I want you to give me tips on my life, and even if you advise me to stop journalism altogether, I will stop, because as a journalist, I like to acknowledge the reality of our country's leaders. They are always able to divide me as a clan. Please help me. Please help me how to get back my confiscated property. I had escaped due to fear of assassination. I am now in Mogadishu, while I can't find the level of situation of my children and my wife is. Please, and possible solution to fix my issues as family of journalism, helping me. Thank you very much. Alhamdulillah Rabbil Alameen. من الإعلامي الصحفي عبد الشكور عبد الله أحمد شاشة إلى المحترم الفاضل هيئة CBJ. السلام عليكم. أحييكم بتحية طيبة مباركة وأشكركم جزيل شكر والعرفان على دوركم هام في الدفاع القضية وحريتي. وبالتالي أحييتكم علما إنني بلا حرية لمدة 51 يوما وحتى يومنا هذا، وليس هناك ذنب ولا حتى شبه ذنب، ولكن ما حدث يعود لخلفية هرشبيل، وهي إنني أنتمي إلى قبيلة من قبائل الأقلية يسمى جرير، ومعظم صوماليون ينظرون على أنهم مجرد عبيد، مع إني حر وابن حر، لا شرعا ولا قانونا ولا عقلا. ما قام به رئيس هرشبيل محمد عبد واري من تجاهي ويقول كيف تصبح صحفيين تتكلم عني وأنت مجرد جرير، لذلك لا يريد
أن يتعامل معي كصحفي له حقوق الموادنة ويفرض علي الذل والهوان مع أني مجرد جرير. والأسباب الأساسية لكل هذا بعد أن تكلمت في أخبار أن الرئيس هرشبيلي محمد عبد الواري اغتصب أرضا حديقة للشعب ومن هم الأيتام. وفي سداد ذلك جاء رد مؤلما من قبل الرئيس تجاهي وهو لأخذ أدوات إذاعة FM والكاميرا ومنعوا مني تعاملي كالصحفيين له حقوق، وصدر الرئيس لإغلاق الراديو. أما هيئة الصحفيون الصوماليون لا يمثل واحد لقبائل لا أقلية سواه، لهذا لم يعد أحد اهتمام بالغ بشأن سوى SJS Union. لذلك ستكون هيئة الدفاع عن الصحفيون سكتوا جميعا. ما هذه waxay u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala. ku socoto ururka saxafiyiinta CBJ ka socoto wariye shasha. marka hore waxaan idinka mahadcelinayaa doorka aad ka qaadateen inaad u doodaan xorriyadeyda. marka xigtana waxaan rabaa inaan idinla wadaago inaan xorriyad la ahay 51 maalmood walina aanan helin wax isbedela. wax sharci ah oo la igu haysto ma lahan, kaliya waxa la igu haystaa adiga oo jareer ah miyaa baahin kara warbixino aad uga hadlayso tacadiyada aan geysano. warka ugu weyn ee aan baahiyay ee la igu haysto waxa uu ahaa beer dad shacab ay leeyihiin oo xitaa agooma ay ku jiraan oo madaxweynaha uu xoog kula wareegay sida ay sheegeen dadka beerta iska leh. waxaana uu jawaab iiga dhigay inuu xoog ugula wareego waliba si cad idaacadeydii oo alaabtii ku jirtay iyo wixii dhex yaalay oo dhan uu madaxweynaha la wareegay iyo qalabkii kaamiradii aan telefishinka ugu shaqeynayay oo sidoo kale uu madaxweynaha la wareegay. taasi oo jawaab u ah iska daa inaad ka hadasho cid aniga aan beer ka qaatay, adiga ayaan qalabkaagii iyo idaacadaadii la wareegayay, maxaad samayn kartaa? ururka aan weheshado ee qiimaha lahow waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in dhammaan ururada warbaahinta Soomaaliyeed ay arrinkayga ka aamuseen marka laga reebo SJS oo dhaqdhaqaaq wada. sababtuna waxay tahay oo kaliya arrimo ku saabsan qabiilka, waayo aniga waxaan ka dhashay qabiilada la takoore ee Soomaalida. inta badanna xubnaha sarsare ee ururada Soomaalida ee warbaahinta kuma lihin wax matalaada. taasina waxa ay markaas caawinaysaa in aan la ii doodin ama aan loo doodin qof walba oo saxafiya oo ka dhashay qabiilaadkaas la yeeso. ama haddii aan ka mid ahaan lahaa qabiilada waaweyn ee maanta Soomaalidu ay u aragto inay ka weyn tahay qabiilada kale, waxaan aaminsanahay in hawshayda aysan ahaan lahayn 51 maalmood oo maalmaha sii dhinaan doona aanan ogeyn ama aananba ogeyn in la dili doono in alaabtayda la qaadan doono ay maqan tahay. waxaan rabaa inaad isiisaan talooyin ku aadan noloshayda, xitaa haddii aad igula talisaan inaan gebi ahaanba joojiyo shaqada warbaahinta waan joojinayaa. waayo inta aan wariyaha ahay waxaan jeclahay inaan tabiyo wararka xaqiiqooyinka ah. waxa la igu haysana waxay tahay maxaad u tabinaysaa wararka xaqiiqooyinka. inaan been sheegi lahaa waxaa iga roon inaan iska daayo warbaahinta. haddii aad u aragtaan inta la ahaan ay qurxoon tahay inaan iska daayo warbaahinta waan qaadanaya. mar walba waa ii awood sheegtaan iyaga oo qabiil ahaan ii liidaya, fadlan iyo caawiya, xornimo ma haysto. hantidaydii waa lala wareegay oo idaacadeydii alaabtii dhex taalay iyo maxaa la dhihi jiray qalabkayga kaamirada waa lala wareegay. muddadaas 2 bilood 9 cisho ka dhiman tahayna kirada
idaacaddaas meeshay ku dhex taallo aniga ayaa laygu leeyahay oo layga rabaa idaacaddii oo la damiyey oo dhaqaalaheedii la hor istaagay oo meelahay xayeysiinadii iyo heshiisyadii ku jirtay dhan ay iiga wada baxeen sababta loo xiriirsan idaacadda ay xiran tahay anay igu socdaan qarashkeeda weliba xasidnimo idaacadda markii la xirayay waxaa la wada daaray dhammaan mashiinada idaacadda yaalla si korontada ay iigu socoto oo laga yaabo markii idaacaddaas dib aan u helo furaheedii ayba suurto gasho haddii la isiiyo in korontada xataa aan iska bixin waayo waayo waxaa la ii diiday inaan shaqaysto idaacadaydiina waa la xanibay xitaa haddii la oran lahaa idaacaddaada waa la xiray dib looma furayo alaabtan ka qaadan lahaa laakiin kiradiina anay igu socotaa alaabtaydiina waa la qaatay oo waa lala wareegay meeshii idaacadda ku kiraysneed intii la xiraa furihii la qaatay xilligan waxaan joogaa muqdisho aniga oo baxsad ah magaaladii aan ku noolaa ee caruurteedii iyo xaasaskayga ay ku noolaayeen ee jawhar ahayd ma tegi karo muqdisho ayaan joogaa waxaana ku joogaa xaal alla ogyahay ma tagi karo meelaha qaar ee dadka reer Hirshabeelle mas-uuliyiintooda ay fadhiistaan ama la isugu tago cabsi awgeed walaalayaal waxaan idinka rabaa inaad caawisaan waxaan ahay wariye ciiloon oo waaya xuquuqdii uu lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh